بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله، درسيني أها شخصية المرأة المسلمة ayaynu weli dhexda kaga jirnay. waxaynuna ku jirnay baabkii ugu horreeyey oo ahaa almar'a almuslima maca rabbiha, gabadha muslimadda ah sida ay uga soo baxayso wixii ilaahay ku waajibiyey. qodobka 14 ayaan 13 baan caawa ka bilaabaynaa. waa inagii nidhi qodob baan u wadaynaa oo odhanaya mudiicatun amra rabbiha. waxay noqonaysaa gabadha muslimadda, waxaynu ka soo baxnay cibaadaadkii iyo salaadihii iyo xajkii iyo baynu ka soo baxnay arkaantii islaamka. haddaba waxaa la rabaa gabadha muslimadda inay noqoto mudiica, mid adeecaysa amarka ilaahay, amra rabbiha, rabbigii abuurtay amarkiisa ayay adeecaysaa oo ayna khilaafaynin, oo wax walba oo ilaahay ku waajibiyeyna la imaanaysaa, wax walba oo ilaahay ka xarimayna banaanka ayay ka maraysa. laa shaka shaki kuma jiro gabadha muslimadda oo diinta garanaysa oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa waxa uu ku waajibiyey garanaysa, in ay og tahay annahaa mukallafatun biاtakaaliif الsharciya alatii amara allahu biha, inay mukallaf ku tahay oo ilaahay ku waajibiyey waxa weeye takaaliifta sharciga ah oo ilaahay uu amray rag iyo dumarba. waayo awaamirta la is-amray oo ilaahay uu rag iyo dumarba amray, awaamirta shareecadu waa caam oo qof walba wuu soo gelayaa rag iyo dumarba, ilaa wixii khaas ku soo arooray oo ragga lagu khaas yeelay ama dumarka lagu khaas yeelay mooye. qaala allahu tacaala, ilaahay waxa uu yidhi isagoo u bishaaraynaya ragga muslimaadka iyo gabdhaha muslimaadka oo wanaagga la yimid, khayrka iyo wanaagga ay leeyihiin: ina almuslimiina wاlmuslimaat wاlmu'miniina wاlmu'minaat wاlqaanitiina wاlqaanitaat wاlsaadiqiina wاlsaadiqaat ilى aakhir اlaaya. aayadda ilaahay waxuu ku sheegay ina almuslimiina kuwii muslimiinta oo ragga ahaa, wاlmuslimaati gabdhihii muslimaadka, wاlmu'miniina raggii mu'miniinta, wاlmu'minaati iyo gabdhihii mu'minaadka, wاlqaanitiina wاlqaanitaat ay kuwii cibaadada u taagnaa oo cibaadada badnaa, wاsaadiqiina wاsaadiqaat raggii iyo dumarkii runta sheegayey, wاsaa'imiina wاsaa'imaat kuwii soomayey rag iyo dumarba, wاlxaafidiina furuujahum wاlxaafidaat rag iyo dumarba kuwii ilaalinayay farjigooda oo zinada iska ilaalinayey oo bannaanka ka marayey, wاdaakiriina allaha kaiira wاdaakiraat kuwii dikriga badinayay rag iyo dumarba. ilaahayow maxay leeyihiin kuwaas? ilaahayow maxaad u diyaarisay dadka wanaagga noocaasa la yimid? ilaahay baa ka jawaabo caddeeyey: acadda allahu lahum makfiratan wa ajran cadiima. ilaahay wuxuu yidhi laba arrimood buu halkaan ku sheegay inuu u diyaariyey. acadda allaahu lahum makfiratan, dembi dhaaf baa loo diyaariyey, inuu ilaahay u dembi dhaafo oo dunuubtoodii la dhaafay. qof dunuubtiisa la dhaafayna aad iyo aad buu u liibaanay. wa ajran cadiiman, ajar aad u fara badanna ilaahay wuu siinaya oo wuu u diyaariyey. walahum aljanna, janno ayay leeyihiin, ridwaanki ilaahay bay leeyihiin, rabbi baa ka raalli noqday oo jannadiisa geeyey. ilaahay naga mid dhigo kuwa noocaas. haddaba aayaddaa waxay kutusaysaa in allihii subxaana qaadirkaa sharaa'icdan, ama soon ha noqoto, ama islaamnimo ha noqoto, ama sadaqadii, ama soonkii, ama waxa weeye dikrigii, kulli in loo siman yahay rag iyo dumarba, oo laga raba labadaba. abaalmarintiina ay isku mid tahay, oo qofkii la yimaado wanaaggiiya waxa weeye maaragtay wanaaggan laga rabo, abaalmarintii ilaahay baa siinaya rag iyo dumarba. aayad kale ilaahay waxa uu ku yidhi: man camila saalixan min dakarin aw unhaa wa huwa mu'minun, qofkii camal sameeya rag iyo dumarba camal saalixa qofkii la yimaada, laabudda waa inuu la yimaadaa camal saalixa
والعمل الصالح وحا ليرادا عمل كاللغه له لبا شرطي الإخلاص لله إلهي درتي له لجيده والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي إن النبي قال راعيه وعمل كاسئوه هي من نبي محمد الله ضياني عليه الصلاة والسلام فقي الدمر كود دونها هذا بشرط وهو مؤمن وإنه يقفك عمل كالليم القف مؤمنة إلهي قال وحبك أقبل مي إلهي وحوير فلنحيينه حياة طيبة وحانو نوليسين إلى أدونك انتو جوغو حياة آد وناكسن حياة طيبة نلول وناكسن راحة طمأنينة القلب يا أخواتي في الله وإخواني في الله معها حياة أدونك إني تاي حول بدن قفكو إنو هاي معها إنو مدحن مهرو معها إن مجعيس للشيك شيغو معها إنو أولاد بدن هايستو حياة طيب كاوحوية وإنو قفكو عبادتي إلهي كتوسية وإنو قفكو قلبي سذكرك إلهي وكجرة وإنو قفكو مسلك السيسويدية وحان أدسميني سيد إلهي رالي مكيهي هديئو قفكو مركب ذكرك إلهي كحريهي ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلبك وحاو كدجا وقلبك كحصلا معها حولها وذكرك إلهي وكتابك قرآنك وسنها نبيك ربك سبحانه قادرك وحيري فلنحيينه حياة طيبة نلل ونكسن بكل نولانيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وحانا أبال مرينينا وأجر كودمان سينينا عملك أي سميين كي أبونا السنة أي معنى أعماش أي سميين أي سيدي عن الوضع أبال مرينيا حتى مرة بتاع أختي في الله حياة طيبة دينت إلهي كلك سيدا دراد يضع وحا كسبنا في السلف الصالح رضوان الله عليهم وحوي علماء السلف مركي أركين وحوي طمأنينة دي iyo wanaagii markay qalbigooda heleen ayaa qaarkood waxay yiraahdeen wallahi haday ogaan lahaayeen ragga waxa weeye abnaa'ul muluk kuwa waxa weeye boqorada iyo xukunka iyo haysta oo ku dagaalamaya oo maalin walba xukunka isku dilaya haday ogaan lahaayeen nolosha aan ku noolnahay xayaatada aan ku noolnahay wanaaga qalbigayga ku jira wallahi way nagu dagaalami lahaayeen oo waxa weeye seefay noo soo qaadan lahaayeen haddaba ma aha ikhwaani fillah inay tahay qofku inuu helo adduunyo ama madaxnimo ama xagga xayaatan tayiba waxa weeye waa qofku inuu ku nool yahay waxa weeye wax ilaahay raalli ka yahay diintiisana uu ku socdo وقال تعالى في آية أخرى إلهي وحوه مركي مؤمنين أي بريين فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى قفكي عمل سمية وإذنك إذا كمل رجع الدنرب إلهي إنوب لنقاضي إن عمل كيمئون ممين هذين النهيد المؤمنين بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب انت صوت الآية دا وحي خطوصي سائية غير كيبدو آياتها لما عنابا خد يبدمر بقفك إلهي انتو كعب صدا عمل صالح لي ماذا وعمل إلهي رالك إياه لي ماذا الله سبحانه قادر كاها إنه وناك أدياري ووناك وطن وحوي وهلي هذا أخت المسلمة هميدن وحوي مركاد أركتد آيدهان وكلا إني رجا كلية كهالليان أدقنا ويكلها الليان ويوحى آتهي الناس ضدك آيات كمتهي مرة دي نقش يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا وضو رجي الدمر بإن لقاها الليان سيدا درادد أي أفهمين سحابيات كي إلي نبي عليه الصلاة والسلام شوقي مؤمنات كي قبله مؤمنين تا وحي أفهمين إني آيضهان عاميهين أو قفوا البالله الليان رجي الدمر تصالع نصو قادنه
waxa weeye almu'miniin waxa weeye ayaynu tusaale usoo qaadanaynaa sida ay maaragtay kitaabka qur-aanka mar hadday ku soo aroortay bay yidhahdeen culummadu ayuha annaas ama yaa ayuha aladiina aamanuu inay tahay caam sida ay u fahmeen. bal waxaan tusaale usoo qaadanaynaa ummu salama oo ah min ka mid ah gabdhihii mu'miniinta ahaa oo weliba xaasaskii nebiga ka mid ah radia allahu canha. qaalat waxay tihi kuntu asmacu annaasa yadkuruuna alxawd waxaan maqlay bay tiri oo maqli jiray dadka oo sheega xawdka. xawdka waxaa la yidhaahdaa inaa acdaynaaka alkawthar waa xawdka nebiga calayhi salaatu wassalaam oo laga cabaya maalinta qiyaamaha dadka mu'miniintaa ay ka cabayaan ahlu bidcana laga celin doono. iska ilaali bidco haddaad bidco la timaadid xadiidkan si fiican u fahan waa lagaa celin doonaa maalinta xawdka nebiga maalinta qiyaamaha qofkii bidco la yimaada oo diinta bidca ku soo dara. waxay tihi xawdka iyagoo dadku sheegaan maqli jiray walam asmac dalika min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigana kamaan maqan. falama kaana yowman maalin ayay ahayd bay tihi goor maalina bay tihi waljaariyatu gabar dhalinyaraa jaariya waa gabadha dhalinyaradaa u shaqaynaysay tamshidunii ii shallaynayso oo timaha ii shallaynayso ii hagaajinayso ayaan waxaan maqlay nebiga oo leh calayhi salaatu wassalaam ayuha annaas dadow ay macnaha i dhegaysta. faqultu liljaariya gabadhii baan waxaa ku yidhi markaa iga durub jooji ay macnaha arrinta dhegaystay. kaasay gabadhii waxay tidhi inamaa daca arajaal xagkuu la hadlay adiga shaqo kuma lihid dumar baa tahay. markaasay almu'miniin caaisha waxay tidhi inamaa ana min annaas anigu dadka ayaan ka mid ah oo soo dadka ka mid meeyi inii min annaas dadka ayaan ka mid ah. faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaasay xadiidkii dhegaysatay nebiga markaasuu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam inii lakum faradun. faradka waxaa la yidhaahdaa ay cala alxawd. faradku waxa weeye waa qofka xoolaha markii biyaha loo aroorinayo qofka inta ka hormara usii diyaariya oo waxa weeye maaragtay usii islaaxiya oo meesha maaragtay usii diyaarinaya oo hadha waxa weeye xoolihii kusoo dhaweynaya reermiigoo kale markay xoolaha aroorinayaan qof bay sii diraan nin baa sii aada ceelkii oo sii diyaariya oo hadhow kusoo dhaweeye oo waxa weeye biyihii usii diyaarinaya. haddaba wuxuu nebigu ka matelayaa ninkaasoo kale ummaddayda ayaan waxaan usii ahay buu yidhi waxa weeye kii ceelka uga sii hormarayey. waxaan taagnahay buu yidhi xawdka agtiisa ayaan taagan. markaasay ummaddii markay timaada ayaa rag laga celinayaa ummaddaydii ka mid ah. markaasaa waxaan dhahayaa ummatii maxaa loo celinaya oo waxa weeye looga celinaya. markaasaa waxaa la odhanayaa inaka laa tadri maa axdatuu bacdaka ma garanaysid waxa ay diinta ku soo dareen bidac iyo dhibaato iyo mashaakil firaqu daalla. waad aragteen maanta caalamka waxa yaacaya khawaarij baa yaacaysa oo muctazila yaacaya oo caqlaaniya yaacaysa oo qadariya yaacaysa oo murji'a yaacaysa kulli firaqu daalla meel walba buuxiyey oo waxa weeye dadkii islaamka ahaayoo dhan bidco ku kharibay oo waxa weeye caqiidadii ka haleeyey oo waxa weeye miday gaalaysiiyaan iyo miday waxa weeye maaragtay kharibaan iyo miday bidco waxa weeye ku cibaadaysa dhahaan sida suufiyoo kale. meel walba marka waxaa yaacaya bidac ama ha noqoto saynu hadda kahor u sheegnay bidacu alcaqaa'id oo caqiidadii in bidco lagu daray ama waxa weeye bidacu alcibaadaat in cibaadaadkii bidco lagu daray ama wax walba meel walba in waxa weeye lagu kharibay. nebigu muxuu ku jawaabayaa marka calayhi salaatu wassalaam markuu la yidhaahdo diintay wax ku soo dareen. wuxuu yidhi nebigu waxaan odhanayaa suxqan liman baddala bacdii ay bucdan iga fogeeyo oo naarta ha lagu fogeeyo kuwa gadaalkayga diintii bedelay. haddaba marka xadiidka oo saxiixa oo waxa weeye imaamu muslim iyo keyrkiiba ay warinayaan ayaa wuxuu ku caddaynayaa ukhta almuslima in haddii aad maqashid aayadaha qur-aanka ayuha annaas inaad soo gelaysid
oo aayad walba oo la hadlaysa dadka caam ah ama mu'miniintoo dhan la hadlaysa oo aan rag gaar uga hadlaynin ogow adigana inay kula hadlayso oo markaad qur-aanka akhriyaysid ku tadabbur oo fiiri aayaddu waxa ay ka hadlayso la imow markaa wixii aayaddu ay ku farayso haddaba gabadha muslimadda oo diinteeda garanaysa oo raacaysa hadyigii nebiga calayhi salaatu wassalaam waxaa la rabaa inay la timaado wax walba oo ilaahay amray inay ka dheeraato wax walba oo ilaahay nahiyey wax walba oo khayra oo ay samaysana waa inay ogaataa in ilaahay ka abaalmarinayo wax walba oo shara oo ay la timidna haddaynan ka toobadkeenin waa inay ogaataa in waxa weeye lagula xisaabtamayo haddaba waxaa loo baahan yahay inay iska ilaaliso ay noqoto waqaafatan cinda xuduud illah inay noqoto mid ku taagan xuduudda ilaahay oo aan dhaafaynin oo aan kitaabka iyo sunnaha ku tumanaynin waa inay noqotaa sida lagu ammaanay oo kale waa inay ku qaadataa dumarkii mu'minaadka ama raggiiba waxaa lagu ammaanay cumar bn khadaab radia allahu canhu ay ku sifeeyeen saxaabadii inay yidhahdeen kaana waqaafan likitaab illah ay ma dhaafi jirin kitaabka ilaahay wuxuu uu amrayuu raaci jiray wuxuu nahyinaya ayuu ka tegi jiray haddaba ukhta fillaah aad iyo aad ugu dadaal arrinta noocaasa haddaba gabadha mu'minadda oo waxa weeye taariikhda islaamka haddii aynu qaar soo qaadanno waxaad helaysaa oo aynu arki doonnaa markaynu tusaalaha u soo qaadanno bal bacda qayb ka mida gabdhihii mu'minaadka ahaa say ugu istaagi jireen oo waxa weeye maaragtay ay aad iyo aad isaga ilaalin jireen inay xuduudda ilaahay gudbaan bal waxaan soo qaadanaynaa taariikhda sida ay ku caddaysay oo waxa weeye ay ku sugnaatay waxa weeye axaadiis iyo waxa weeye maaragtay taariikh sugan ay tahay bal mawqif ay qaadatay gabar muslimada oo waxa weeye xilligii nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabiyada mawqif ay qaadatay iyada iyo ninkeedii intay iskhilaafeen markay iskhilaafeen ninkeedii uu khalad ku dhacay khaladkii uu ku dhacay isagoon ka bixin ayuu haddana damcay inuu khalad kala dabaasho markaasay hor istaagtay oy tiri kallaa ma jirto inaad arrintaas samaysid ilaa ilaahay xukumkiisa la ogaado waxa uu ka qabo oo rasuulku uu caddeeyo waxa weeye arrintaa marnaba waxa weeye ma samaynin arrintaasi waxa weeye markaa bal markaynu akrino ayaad fahmaysaan oo garanaysaan gabadhaa mawqifkeeda cajiibka waxaa sugnaatay sida ay warinayaan imaamu axmed iyo imaam abu daawuud iyo ibnu kasiir iyo kayrkoodba waxa weeye ay ku wariyeen weliba waxa weeye bilowga fii suurati almujaadala fii suurati almujaadala soomaaliduna ay qad samaca u taqaan ayaa waxaa dhacday gabar la odhan jiray khawla oo waxa weeye saxaabiyad ahayd oo aad iyo aad u qiimo badnayd ayaa waxaa dhacday waxay tihi khawla binta taclaba ayaa waxay tihi zawjkeedana waxaa la odhan jiray aws ibna samit ayaa la odhan jiray khawla ayaa warinayso waxay tihi fiya wallahi aniga iyo wa fii aws ibna samit waa ninkeedii anzala allahu sadra suurati almujaadala inta suuradda hore oo mujaadala annaga ayay nagu soo degtay oo maxay idinku soo degtay waxay tihi kuntu cindahu agtiisaan ahaa ay uu qabay macnaha xaaskiisaan ahaa wa kaana shaykhan wuxuu ahaa nin weynaaday qad asaa'a khuluqahu khuluqdiisii waa xumaatay qofku markuu weynaado dabeecadihiisu waa isbedelaan soo iyaduna way ka yaray oo sida ay u muuqato dee gabar ka yar bay ahayd marka nin weyn buu ahaa akhlaaqdiisii baa xumaatay bay tiri oo dulqaadkiisii iyo wixiisii baa yaraaday maalin maalmaha ka mid ah ayuu ii soo galo gurigii markaasaanu xoogaa mulannay bay tiri oo hadal aan ku celiyey markaasuu carooday markaasuu wuxuu yidhi intuu carooday anti calaya ka dahri ummii waxaad iga tahay hooyaday oo kale hooyaday oo kale ayaad iga tahay jaahiligii marka masaladan hooyaday oo kale aad iga tahay furiin bay u yiqiineen oo arrin
way iska isticmaali jireen. laakiin diinta islaamku ilaa iyo hadda ilaa xilligaas gabadhaasi arrintaa ay ku dhacayso xukum kama soo degin oo lama garanayo. markuu saa yidhi ayuu intuu carooday iska baxay bay tiri. waa dhaqan waxa weeye jira oo waxa weeye haddii xataa waana dhaqan wanaagsan oo labada qof oo guriga hadday isku caroodaan ninka iyo xaasku waxaa fiican in yaro lasoo kala warwareego ooba lasoo carabaabo oo qof walba maaragtay dee iyadu ilmihii iyo reerkiiba ku mashquulsan tahay dee ninku intuu iska yara baxo oo cabaar soo maqnaado oo soo fekero inuu hadhow soo noqdo oo hawsha xaliyo. waayo shaydaanka ka faa'iidaysanaya isla markaba haddii waxa weeye maaragtay murankii baa sii soconay haddii aan la kala tegin. qaalat waxay tiri wuu soo noqday. markuu soo noqday dee ninkii kii xanaaqsanaaba ma aha waaba kanoo intuu gurigii yimid oo ii soo galay buuba aniga naftaydii soo aaday oo jimaac buu rabaaba. ninkii hadeer ilahaa hooyadoo kale iga tahay maba ahaba. qaalat waxay tiri markuu soo aaday baan qultu waxaan ku yidhi kallaa waaladii nafsu khawla biyadihi ay ilaahay baan ku dhaartay inaadan ii soo dhowaanaynin oo aadan agteeda imaanaynin xataa yaxkuma allahu wa rasuuluhu fiima baynana bixukmi. ay macnaha ilaa uu ilaahay ina kala xukmiyo oo wixii aad ku hadashay oo aad tiri xukumkeeda horta la ogaado walla inaadan ii soo dhowaanayn bay tiri. wuu igu soo booday bay tiri waxdaa inuu dee ikhasbo waan iska tuuray bay tiri waayo oday weyn buu ahaayo dee way ka yara xoog badnayd. waxay tiri sida gabadha ay odaga daciifkaa oo nin weyn oo daciifa isaga tuudho unbaan xagga inta u tuuray baan ka baxay bay tiri gurigiiba. qof xoog labay ahayd oo dhallinyaro ah. intaan xagga u tuuray baan waxa weeye markuu soo aaday ayaan gurigiiba ka baxay bay tiri oo guri deriskayga ah intaan dhar ka qaatay ayaan dharkayga inta xirtay oo isa sii daayaan nebiga u tegey bay tiri calayhi salaatu wasalaam. nebigii baan u tegay calayhi salaatu wasalaam markaasaan arrintii u sheegay. markaasuu nebigii jawaabdee kama bixin waayo weli xukum kama soo degin. wajacaltu waxaan yeelay bay tiri ashku ilayhi inaan u dacwoodo nebigoo dhahayo rasuulka ilaahay akhlaaqdiisa ninkaan xumaatay oo dhibaato badan baan kala kulmaa oo waxa weeye naftii baa qabatay aduu dhibteediiba sheegay. nebigu waxay tihi wax kale ma samaynin wuxuu idhahayay keliya yaa khawla ibnu camiki waa ina adeerkaa shaykun kabiir waa nin weynaaday fattaqi llaaha fiihi ilaahay ka cabso oo ninkaa waxa u dulqaado oo waxa weeye maadaama uu nin weyn noqday dee ha ku dayane akhlaaqdiisa iyo wixiisa u dulqaado. saas uu igu celcelinayo nebigii iwaaninayo ayaan anoon meeshii ka kicin ayaa waxaa soo degay waxyigii oo nebigii baa waxa waxyigii ku soo degay. mar alla markii waxyigii ku soo degay oo dee waxyigii qabtay oo waxa weeye nebigu markuu waxyigu ku soo degayo waa isbedeli jiray oo arrimo badan bay calaamada leeyahay waxyigu markuu soo degayo. markuu markaas ka fayday waxyigii ayuu ila hadlay bay tiri oo yidhi yaa khawla qad anzala allahu fiik wa fii saaxibik adiga iyo ninkaagii ilaahay qur-aan buu ku soo dejiyey uma kalaa kabacdi buu uma qara'a wuxuu akriyey qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtakii ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma ilى aakhir qowlihi walilkaafiriina cadaabun aliim. ay macnaha aayadaha inta hore ilaa 4 aayadoodoo hore ayaa ilaahay ku soo dejiyey oo arrinteedii markaa lagu caddeeyey iyadoo loo caddaynayo dihaarkii waxa uu yahay inuu yahay qowl baatila oo aan la ogolayn oo ragga waxaan uga digaynaa intay jaahilnima qaado inuu iska yidhaahdo hooyaday oo kalea iga tahay. ninkii yidhaahda xaaskiisa hooyaday baad iga tahay allihii subxaana qaadirkaaha waa adkeeyaya arrintiisa. waa inuu addoon xoreeya qof addoona waa inuu xoreeya. hadduunan xorayn karin waa inuu 2 bilood oo mutataabica uu soomaa sida nebigu u xukumay u fiirsada. qaalat waxay tihi
faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam falyuctiq raqaba murhu bu muriihi amar oo u sheeg ninkaaga ila isagaa khaladkaan galay falyuctiq raqaba addoonaa xore qaalat waxay tiri waxaan idhi yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo maba hayste waa nin faqiiro waxba haysan markaasuu wuxuu yidhi nebigu falyasum ha soomo shahrayni mutataabicayn 2 bilood oo xiriira buu soomaya oo waxa weeye wixii uu ku hadlay kafaara gudkeeda waxay tiri waxaan ku yidhi rasuulka ilaahay waa shaykhun kabiir waa nin weyn oo aan u dulqaadan karin oon tabar haynin markaasuu wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wassalaam falyudcim ha quudiyo 60 miskiinan 60 miskiin ha quudiyo markaasay waxaan idhi rasuulka ilaahay oo maba haye oo dhaqaalama hayste markaasuu nebigu wuxuu yidhi annagaa caawinayno waxaan ku caawinaynaa sanuciinuhu waan ku caawinaynaa bifaraqin min tamri ay macnaha faraqu waa weel weyn oo waxa weeye sallada weyn oo kale oo qaada ilaa 60 kiilo meelahaas qaada markaasay waxay tiri anna waxaan ku caawinayaa intoo kale calaa kulli xaal macal shaahidku waxa weeye hadda waa xadiidku waa xadiid xasana sida imaamu abu daawuud iyo ku warinayaan waxasanahu alcalaamatu alalbani raximah llah fi sunani abi daawuud waxa weeye 2214 raqamka wuxuu marka xadiidkaani inoo caddeeyey oo waadix inooga dhigay oo hadda macal shaahidkaan usoo qaadanayna uu yahay mawqifka ay istaagtay khawla oo ah ninkii hadda hadalka ku hadlay iyadoon ogeyn wuxuu hadalkaasi xukunkiisu noqonayo inay waxa weeye horta hubsato oo ilaahay iyo rasuulka u bandhigto oo ay ogaato diinta islaamku hadalkaa maxay ka qabtaa haddaba marka gabar walba oo muslimada waxaa la rabaa wax walba oo aynan garanaynin oo la soo gudboonaada oo markaas ay u aragto inay arrin khatara tahay oo khalada inay diinta islaamka u bandhigto oo markaas ay weydiiso ciddii cilmi u leh fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun lama rabo marka inuu qofku iska dabaasho sida dadkeenna ay sameeyaan qofku wuxuu ku leeyahay saas iyo saasaan sameeyeen maxay diintu ka qabta horta intaadan samayn diinta ogo waxay ka qabto markaad samaysid ood ku dhacdid wixii ma aha inaad tidhaahid maxay ka qabta laakiin inta aadan samayn sida mawqifka ay khawla qaadatay intaadan arrinta bilaabin oo samaynin ayaa la rabaa in aad horta waxa weeye ogaatid waxa weeye waxay ka qabto diinta islaamka halkaasaad markaa qofku ku badbaadi karaa laakiin arrintii markaad ku dhacdid wax qiimaada male waxa weeye waxaad la kulmaysaa arrin adag haddaba waad ujeedaan marka in arrintaana la iska ilaaliyaa la rabaa oo aad iyo aad la isaga ilaaliyo oo waxa weeye aan lagu dhicin arrinta noocaasa dihaarku waa arrin aad iyo aad u khatara waana qowlu zuur wey haddaba markay gabadhaas muslimadda ah waxay noqotay gabar aad iyo aad cinda saxaabada ridwaan ullaahi calayhim aad iyo aad bay u qiimayn jireen oo waxa weeye way qadarin jireen waayo waxay odhan jireen gabadha ilaahay uu maqlay fawqa 7 samaawaat waxa weeye fadligeeda iyo wanaaggeeda aad iyo aad buu khatar u yahay sidaa daraaddeed baa waxaa dhacday cumar bna khadaab radia allahu canhu ayaa waxaa laga warinayaa inay waxa weeye maalin isagoo amiiru lmu'miniin ah ayuu wuxuu ka soo baxay masaajidka markuu masaajidkii ka soo baxay ayaa waxaa la kulantay khawla oo weynaatay oo waxa weeye goor dambe weeye nebigu uu dhintay calayhi salaatu wassalaam abubakar uu dhintay amiiru lmu'miniin uu cumar yahay khawla ayaa la kulantay markaasuu salaamay oo u istaagay wahuwa amiiru lmu'miniin faqaalat waxay tihi lahu yaa cumar cumarow waxaa iigu kaa arrintaada waxaan garanayaa bay tiri oo macnaha aan ku garanaya adiga oo wiil yara ah ile qoftaani reer makay ahayd adiga oo wiil yara ah oo lagugu magacaabo cumayr macnaha taskiir weeye waa cumar yarow oo kale weye oo waxa weeye fii suuqi cukaab
waa suuq ku yaalla maka ayaad waxaa raaci jidhay waxa weeye arig haddaba fattaqi allah ilaahay ka cabso oo fi raciya amiiru lmu'miniin bay saa ula hadlaysaa waxay leedahay ilaahay ka cabso shala adoo arig raacayaan ku ogaaye oo waxa weeye halkaa waxa weeye ida iyo riyo la jooge maanta oo aad amiirulmu'miniin tahay ilaahay ka cabso dadka aad mas-uulka ka tahay waclam ogow bay tiri annahu man khaafa alwaciid qaruba calayhi albaciid waxa weeye qofkii waciidka ka cabsada macnaha qofkii ilaahay ka cabsada wax walba waa usoo dhowaadaan wax walba waa u fududaadaan waman khaafa almowt qofkii mowtka ka cabsada khashiya alfawt ay macnaha qofku hadduu mowt ka cabsado oo isiraado geerida imaanaysa acmaashii o dhan waad ku dadaalaysaa waxba kaa fakan mayaan aad iyo aad baad ugu dadaalaysaa faqaala aljaruud waa ninkii la socday markaa oo ka warinaya cumar bna khadaab waa taabici ma yaqaan isagu khawla waa nin waxa weye aan markaa garanay khawla markaasu wuxuu ku yidhi intuu la hadlay qad agtarti calaa amiiri almu'miniin ayatuha almar'a qofyaa dumarka ahi waad aad baad arrinta waxa ugu xeel dheeraatay oo amiirkii aad baad arrinta ugu badisay dee canaanta iyo waxa weye hawsha ka kala yale faqaala cumar baa wuxuu yidhi dachaa dhaaf da' buu yidhi da' amaa tacrif miyaadan garanayni haadihi khawla tani waa khawla buu yidhi allatii samica allahu ilaahay uu maqlay qowlahaa min fawqa 7 samaawaat waa qowladii ilaahay uu qowlkeeda maqlay oo iyadoo halkaa ka hadlayso nebiga la hadlaysa ilaahay uu fawqa 7 samaawaat uu ka maqlay oo ka jawaabay arrinteeda oo yidhaha qad samica allahu qowla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa cumar buu yidhi axaqu wallahi an yasmaca laha cumar ayaa u xaqlay inuu qowlkeeda dhegaysto waayo ilaahay baaba qowlkeedii maqlay oo ka jawaabay oo arrinteedii qadariyey seebuu marka cumar u dhegaysan waaya waa arrin marka aad iyo aad oo cajiiba oo waxa weeye qiimaha ay lahayd baad garanaysaa waxaa kaloo ibnu kasiir uu warinayaa fii tafsiirihi cumar ibna khadaab radia allahu canhu ayaa xilligaa markaas markuu saas ay khawla ula kulantay ayaa nin baa la joogo wuxuu ku yidhi oo waxa weeye iyadoo halkaas ay joogaan nin baa ka warinaya wuxuu leeyahy cumar ibna khadaab annagoo markaa la soconna ayaa islaan cajuusaa oo waayeena ayaa cumar ibna khadaab qabatay markaasu waxa weeye ay aad iyo aad ula hadasho markaasaa nin qurayshtii ka mid ahaa wuxuu raggii la joogay oo quraysha qof yahay dumar qof yahay cajuusadaah islaan yahay weyn waad ku badisay ka daa amiirka markaasuu cumar wuxuu yidhi wayxa miyaadan garanaynin markaasuu ma garanayo qaala wuxuu yidhi markaa cumar haadihi imra'atun samica allahu shakwaaha min fawqa 7 samaawaat danteedii iyo dacwadeedii baa ilaahay maqlay 7 samo ka kor seebaan marka anugu aan qowlkeeda aan u maqli waaya wallaahi kama dhaqaaqayo kamana tegayo ilaa ay danteeda dhammaysato ilaa in salaada inta la aqimo aan dadka salaada tujiyoon u soo noqdo oo haddana danteeda aan u dhammeeyo mooye inaanan ka dhaqaaqaynin ilaa iyadu ay dhaqaaqdo haddaba markaa waxaynu ka qaadanaynaa qisada khawla binti thaclaba inay markay qoftaasi xukumkii ilaahay ilaalisay oo diintii ilaahay ay ilaalisay ayaa iyadiina ilaahay ilaaliyey xukumkeedina ilaahay soo dejiyey saxaabadiina ay jeclaadeen oo agteeda saxaabadii waxay noqdeen kuwo aad iyo aad u qiimeeya khawla binti thaclaba waa innagii hadda ka hor soo maraynay xadiidkii haddii qofka ilaahay uu jeclaado samaawadoo dhan baa laga jeclaanaya qubuul baa loo soo dejinaya haddaba haddaad rabtid ukhta almuslima in ilaahay ku jeclaado ilaali xuduudda ilaahay waxaan kaloo tusaale usoo qaadanaynaa gabar kale oo mu'minada oo weliba ka mida min ummahaati almu'miniin waxa weeye zaynab binti jacash ayaynu usoo qaadanayna waxay ahayd gabadhaasi arrinteedu gabar waxa weeye
aad iyo aad arrinteedu waxa weye ay cajiib u tahay. allihii subxaana qaadirka ahaa uu xukum ku soo dejiyey lagu baabi'iyey arrimo badan oo ay aaminsanaayeen dadkii jaahiliga ahaa. zaynab binti jaxash oo ah waxa weeye quraysh oo ka mid ah gabdhihii ugu wanaagsanaa waxa weeye cabdishams qabiilka la yidhaahdo, oo aad iyo aad qiimo u lahaa oo la qadarin jiray, oo ayna dhashay nebiga eedadii ayaa dhashay, umayma binti cabdilmuطalib baa dhashay. gabar marka waxay aad iyo aad qiimo u leh. bal arrinteeda iyo qisadeeda marka ayaynu akhriyaynaa oo aynu soo qaadanaynaa si gabadha muslimadda ahi ugu dayato, maadaama ilaahay uu yidhi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim. gabadha mu'minadda iyo ninka mu'minkaa mar haddii ilaahay uu wax xukmiyo samcan wa taacan waxaan ahayn male, meel kale uma fura, ikhtiyaar kale ma ay laha. qofkii ilaahay caasiyana waman yacsi allaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina. haddaba gabadha muslimadda ah oo markii dambena noqotay min ummahaati almu'miniin, arrinteeda baynu soo qaadanaynaa oo fiirinaynaa iyadana si aan cibro uga qaadano. zaynab binti jaxash radia allahu canha waxay ahayd gabar quraysha oo ka mid ah gabdhihii waxa weeye reer cabdishams nimanka la yidhaahdo. laba arrimood ayay qisadeedu taxqiiqisay. kow, marka ugu horaysa taxqiiqu almusaawaat bayna annaas, bayna almuslimiin, dadku inay siman yihiin oo ayna jirin wax farqiya oo aan la kala sarraynin ilaa bitaqwa allah. in la isguursanayo oon qabiil qabiil ka fahmi kara uuna jirin. mar haddii la yidhi muslimiin oo laa ilaaha illa allah muxamadan rasuulullah la yidhi, in isku mid yahay oo aan wax haba yaraatee qof qoran kara reer hebel baan ka fiicnahay ama reer hebel ma guursado inayna jirin. xataa qofka addoonka oo markaa waxa weye dee maanta addoon ma jira, laakiin addoon waxaa la yahay qofkii markaas la addoonsan jiray oo la xoreeyo ayaa mawaali la odhan jiray, inuu dadka la mid yahay oo aadan waxba dheerayn. iyo qaybta kale oo arrinta labaadoo kaleo qisadaani ay caddaysayna waxay tahay ibtaalu caadati tabani. waxay baabi'isay oo la diiday oo la joojiyey waxaa la yidhaahdo tabaniga. tabanigu waxa weeye ilmo aadan dhalin inaad tiraahid anaa dhalay oo tiraahid aabbaan u ahay ood korsatid sida dadkii jaahiliinta ay samayn jireen oo jaahiliga ay isticmaali jireen, maantana dad badane ay sameeyaan. haddaba labadaa arrimoodba sida ay qisadaasi u baabi'isay oo loo baabilgareeyey ayayna waxa weeye taabanayna. labadubana waxay la soo gudboonaadeen zaynab binti jaxash radia allahu canha. marka ugu horaysa qisada ugu horaysa ninka la yidhaahdo zayd ibn xaarisa, nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu mawle u ahaa. markii hore wiil buu ka dhigtay, addoon buu ahaa. nebiga calayhi salaatu wasalaam baa soo korsaday, wiil buu u ahaa. kabacdi waxaa loo aqoon jiray zayd ibn muxamed xilligii jaahiligii, laakiin asalkiisa waxa la yidhaha zayd ibn xaarisa. weliba mu'arikhiintu waxay leeyihiin ninkaani markii hore wuxuu ahaa waxa weeye qabiilka carabtuu ka dhashay, waa la soo xaday, isagoo wiil yaraa la soo xaday oo la iibiyey, saasay mu'arikhiintu leeyihin. haddaba marka zayd ibn alxaarisa oo usaamo dhalay, nebiguna aad u jeclaa oo wiilkiisiiyo uu korsaday ahaa, marka zayd ibn maxamed baa la odhan jiray. markaasaa allihii subxaana qaadirkaa iyo rasuulku waxay amreen, rasuulkaa wuxuu amray zayd inuu guursado
zaynab binti jaxsh zaynab buu u yimid nebigu wuxuu yidhi guurso oo waxaan kuu guurinayaa waa eedadiisaa dhashay umayma binti cabdilmudalib baa dhashay waana gabar qurashiyada qurayshna waa nimanka markaa waxa weeye dee jaahiligii qabiilka ku fahmi jiray oo qabiilada ugu sarreeya ahaa ayay ahaayeen laakiin markii dambe diinta islaamka dadka waa sinmeen oo wax kala sarreeyaa ma jiraan kullukum aadam wa aadam khuliqa min turaab nabiyullaahi aadan baa laga wada yimid aadamna ciid baa laga abuuray markaasuu nabigu wuxuu yidhi guurso markaasa waxay tii rasuulka ilaahay oo aniga oo ah gabar quraysha oo waxa weeye dee ka dhashay qabiilkii dadka ugu fiicnaa miyaan maanta waxaan guursanayaa nin mawaaliya oo waxa weeye addoon shala ahaa ma guursanayo bay tiri ha iga daa markaasuu rasuulku ku adkeeyey wuxuu yidhi maya waa inaad guursataa arrintii waa adkaatay marka iyadoo markaa iyada iyo walaalkeed ba arrintii diidan yihiin baa layidhi ayaa qowlkaani soo degi wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuulu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihi mar haddii gabadha mu'minadda ma ninka mu'minka mar haddii xukumka ilaah yimaado ikhtiyaar damba ma harin waa inaad tiraahid samcan wa daacan waa inaad hoggaansatid التصليم بالغاربة وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قفك إلهي الرسول كعاصينا وعظم قفك أرنتي مركي هالكاس آيات سودتي بيتري إذن لا أعصي الله ورسوله هذا بيتري بس هذا الإسئلة بيتري مركي أول أرنت وحي هاي طلب وحي ما هاي لكن مرة بي هذا وحي النقطي سمعا وطاعا بيتري مركي إلا مركو هنا أرنتو طلع أهيد يا وحوي ما رأيتي أرنتا نجيل إيا جبر جور لجر هذي ونين كي ربط الدين ليس نين كي ربطنا يليس لكن مرة دي إلى هاي حكومي هذا الذنب مجنون ويسبيبتي مرة زيد بن حارث هو الأبوري نفتي دي ويبيبتي لكن دي قلبي ما هننكره قف نفتي سي ويبيبتي نفتي دي ويبيبتي فدرادة دواء سبناتي زيد بن حارثة مركو عركي نايتي إلى النيات هاينين في قفك ما قف عاقم يا لما ران كذا جوابي وحاول نفتي بيكون يبتي لكن نيات ما هيصو أرنتي والو خصبي لكن آدي الزور كميات ما هيصو لكن نفتي بيوه جامش مركاسو زيد مركو عركي أرنتي ayuu waxa weeye markaa mar walba intuu nabiga u yimaado wuxuu oranaya rasuulka ilaahay gabadhan waa iska sii daynay lama ma hayn karo waxa weeye arrintan guur saan kuma sugnaan karo markaasuu nabigu wuxuu oranayay har ilaahay ka baqo reerkaaga hayso orad waxa weeye reerkaaga dhaqo waatuu ilaahay ku cadeeyey waid taqulu liladii ancama allahu calayhi waancamta calayhi amsik calayka zawjaka wattaqi allah wareerkaaga hayso ilaahay ka cabso ka bacdi markuu hayn waayey oo uu furay ayaa aayadahan soo degay maxay noqotay markaa gabadhii shalay lagu khasbayey ninkan mawlaha in maanta ay noqoto almu'miniin ummahaat almu'miniin ay ka mid noqoto oo nebigii loo guuriyo bal waxa weeye ilaahay uu toos ugu guuriyo oo aan cid kaleba la weydiin ilaahay baa waxa uu yidhi watukfii fii nafsika ma allahu mubdii watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhshaa falama qadaa zaydu minha wadaran zawajnaakaha ilaahaygu subxaana qaadirkaa baa wuxuu yidhi annagaa kuu guurinay cid la weydiinayaa ma jiro fawqa sabca samaawaatin baa lagu guuriyey rabbigii subxaana qaadirkaabaa tawaniyey arrinteeda maxaa marka arrintaa loo samaynayey arrimahan soo socda likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaa'ihim idaa qadaw minhuna wadaraa wa kaana amru llahi mafcuula arrintoo dhan waxaa loo samaynayey dadkan ay ka dhigteen ilmaha oo tabaniga beenta oo aan saxiix ahayn
oo wax sugan ahayn in la baabi'iyo oo la bedelo oo qofku dhalayo dhiiggiisa ayaa waxa weeye u noqonaya ilmo laakiin qof aadan dhalin ilmo ku noqon mayo si kasta haddii la yeelo qof aadan dhalin ilmahaagii ma aha haddaba marka qofka aad iska sheegatid oo tiraahid waxa weeye maaragtay waa ilmahaygii wax saxiixa ma mana ku noqonayo ilmihii waa inaad ogaataa qofka aad marka tabanigaas oo kala sameeya waxa weeye xaaskiisa uu guursado ilmahaas aad tabaniga ka dhigatay xaaskiisa dee ma aha xaaskii waxa weeye maxramka aad u noqonaysay oo ilmahaagii oo kale oo wiilkaaga xaaskiisa oo kale ma noqonayo markay aayadahan soo degeen ayaa nebigii isagoo faraxsan ayuu markaas wuxuu yidhi yaa u tegayaa zaynab oo arrintan ugu bishaaraynaya zayd bin xaarisa laftigiisa ayaa xataa arrinta u sheegay baa la yidhi calaa kulli xaal markaa saacaddaa laga bilaabo ayay waxay noqotay ilaahay baa yidhi zawajnaakaha waxa weeye waxay noqotay markaa waxa weeye min ummahaati almu'miniin bay noqotay oo xaasaskii nebigay ka mid noqotay haddaba ilaahay wuxuu ugu abaalguday fiiri markay waxa weeye nafteedii shala isdhiibtay oo iyadoo waxa weeye aad iyo aad ay dhib ugu tahay ay ogolaatay inay ilaahay rasuulkiisa u hoggaansanto ilaahay wuxuu ugu abaalguday inay ka mid noqoto ummahaati almu'miniin oo waxa weeye ilaahay uu qur-aan ku soo dejiyey ilaa qiyaama saaca la akrinayo oo waxa weeye lagu cibaadaysanayo wanaagga noocaasa marka ayay ku fahmi jirtay zaynab radia allahu canha dumarka lala qabay oo kale oo waxa weye ummahaadkii kale ayay ugu fahmi jirtay oo waxay odhan jirtay zawajukunna waxaa idinkayda guuriyey ahaaliikunna dadkii ahalkiina haba ida guuriyey wazawajanii allahu tacaala min fawqi 7 samaawaat anigana ilaahay baa wuxuu guuriyey samawaadka korkooda 7 samo korkooda ayaa ilaahay igu meheriyey aniga oo aniga waxa weeye ahalba layma weydiinin waa naagta keliya oo allihii subxaana qaadirka ahaa toos uu ugu guuriyey nebiga amaa naagihii kaleo dhan oo nebigu guursaday ummahaat almu'miniin kulli waxa weeye ahalkooda ayuu nebigu weydiistay oo si caadiya ayay ahayd arrintooda haddaba khulaasadu waxa weeye qofkii ilaahay ka baqa oo rabbigii subxaana qaadirkaa adeeca oo dariiqa uu rabo mara allihii subxaana qaadirkaa wanaag buu siinayaa wanaag buuna ugu abaalgudayaa amaa qofkii ilaahay caasiya qofkaas ayaa khasaaraya qodobka 14 waan u soo gudbayna waxa weeye laa takhluu biajnabiy gabadha mu'minaddaa waxay iska ilaalinaysaa inay nin ajnebiya inay waxa weeye la keli noqoto ajnebi waxaa la yidhahdana waa fasiri doonaa nin ajnebi kaa ukhta almuslima marnaba inaad u dhowaatid oo aan xalaal ku ahayn oo aan maxramkaagi ahayn inaad waxa weeye la keli noqotid lama ogola oo inaad guri la joogtid lama ogola oo inaad keligiin meel cidlaa isugu timaadaan oo aan cid kale idinla joogin lama ogola ukhti fillaah nebiga ayaa yidhi calayhi asalaatu wassalaam laa yakhluwanna rajulun biimra'atin war nin yuunan gabar la keli noqonin ilaa wa macahaa duu maxram ilaa inuu la joogo qof maxaarimteediyaa mooye walaa tusaafir ilmar'atu gabadhu yayna safrin ilaa maca dii maxrim waxa weeye maca dii maxram qaybtaas hadhow bayna fasiri doonaa qodob baan ka dhigaynaa safarka haddii rabin waay haddaba gabadha muslimaddaa waxaa xadiidkaas uu nebigu kaga nahiyey rag iyo dumarba in khalwada la yska ilaaliyo oo marnaba aan waxa weeye khalwo la samaynin haddaba marka waa maxay maxramku maxramku laba nooc weeye gabadha muslimaddaa laba ayaa maxram u noqda imaa bizawjiha ninkeedii inuu yahay iyo
وحكروا صراعة كل من حرم عليه الزواج من المرأة على التأبيد قفك أنك جورسن كرين ورقة أيام محرم كوا ويددك أنك جورسن كرين لبا يقرب بحان أختي في الله قف وحاول التأبيد وحرام كأن ورقة كجورسن كرين walaalka adeerka waxa weeye ilmaha eedada u tahay kuwa habayarta u tahay kuwaasoo dhan aabaha awowga dadka noocaasa abtiga dadkaasi waxa weligood kuma guursan karaan waa ilmo waxa weeye dad waxaa tiin ama walaalo ama ilmo ama weligood kuma guursan karaan dadka noocaasa maxram la yiraahdo ama kuwa kale oo ay dhici karto xilli mu'aqata inayna ku guursan karin kuwa maxrama مثلا dad badan baa ku khaldama habaryarta ninka qaba maxram ay noqonaya kuma aha maxram waayo dad habaryarta biri uu furo ama ay dhimato iyadu ku guursanay haduu rabo kuma noqonayso marka maxram kuma ninka walaasha qaba waa lamid ninka eedada qaba waa lamid kuwa maxaarim lama yiraahdo waxayna ku guursan karin inta uu eedada qaba ama habaryarta ama walaasha abadan ama wixii lama oga haddaba marka maxram waxaa la yidhaahdaa qofka aan ku guursan karin cala ta'biid abadan weligii ku guursan karin iyo ninka ku qaba oo zawjkaaga xalaasha waay ajnabi maxaa la yidhahdaa marka ajnabiga waxaa la yidhaahdaa dadku ajnabi waxay u yaqaaniin dhaqanka caadada soomaalida waxay ku leeyihin ajnabi wey ajnabi waxay yaqaaniin qofkii ka hesheeya oo waxa weeye aan qaraabo lahayn la أجنبي وحال يرادا كل رجل يحل له الزواج منها أصلا من والباء أو كجيا ليرادا أجنبي منك كجيا أجنبي بكاية أو أما قرارة هذا النقطة أما يونقل سيدا مثلا إن عذيركا إن عبتيكا إن عبريتكا كل وحوية وأجنبي منك لقى شيء منك هذا وحوية دماشقة وأجنبي كل waxaasoo dhan ayaa ajnabi la yiraahdaa waxa la yiraahdaa qofka ku guursan kara oo meher ku qaban karo ayaa ajnabi ka ah taas ayaa loo jeedaa ajnabiga sharciga ee laga wado ninka qofkaadan qaraabo lahayn nabigu wuxuu yiri iyaakum wadkhul ala an-nisa ragaw iska ilaaliya dumarka u gelinina oo guryahooda gelinina iyagoo kaligooda oo aan idin la joogin فقال مركاسا من أنصار كمدا وحي الرسول كلا أفرأيت الحموة حموة كورا حموة دماشقة ومنك لا شيء أخو الزوج وي ومنك لا شيء منك هذا أما إنا ذيركي أما كان لا شيء وي وحي مركا كورا منك محالف كورا دالي منك لا شيء منك وقرق مرور بإسكسو الجرية قال وحي النبي الحمو الموت كاس وهذا جيري كاسابا وقود دارمبا وهذا جيري بكا وهي صوت وحوية وجيري كل نقضي dadkii kama shakiyayaan oo waxa weeye mar walba isagu gurigiisa iska soo galaya shaki laga qaadimayo waxa weeye maaragtay sahal waxa inuu soo galo ninkii oo maqan haduu guriga yimaado laga shakiimayo laakiin nin kale ajnabiga markuu guriga soo galo dadka dhan baa shakiyay haddaba marka hala iska ilaaliyo dad badan baa ku fidnoobay oo waxaad arkaysaa dad badan oo arrintaa khaladkaa ku dhacay dumar badan baa ku halaabay rag badan baa ku fidnoobay waxa weeye ninkii iyo dumaashidii gurigiiba iska wada joogaan shaydaan baa ka qaalib noqonaya hadhow way xumaan ku dhacayaan diinta islaamkuna waxayna amartay in banaanka laga maro haddaba gabadha muslimadda ah oo ilaahay ka cabsanaysa oo diinta ilaalinaysa waa midda ku istaagaysa cinda xuduud illah oo aan dhaafaynin oo wix ilaahay ka xarimay banaanka ka maraysa ama qaybta musaafirka iyo safarka inayna safri karin gadaal baynu qodob baynu ka dhigaynaa gadaal baynu oga imaanaysa qodobka 15 waxaan ku soo qaadaynaa talzimu alxijaab alsharci aljilbaan gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay xijaabkeeda sharciga laasimto oo ay ku taagnaato sida allihii subxaana qaadirkaa u amray
oo qur'aan ugu soo dejiyey inay qaadato baa la rabaa oo ay ku taagnaato oo ayna noqon gabar ilaahay caasiyeysa oo mutabarrijada oo waxa weeye isqaawinaysa oo waxa weeye aad arkaysid inay waxa weeye ku cayaaraysa diintii ilaahay. lama raba inay noqoto gabadha muslimadda, bal waxaa la rabaa gabadha muslimaddaa sidii ilaahay uu amray inay waxa weeye ka soo baxdo. qaala allahu tacaala waqul lilmu'minaati, gabdhihii mu'minaadkaa waxaad ku dhahdaa gabar walba marka nafteeda ha eegto, horta mu'minad ma tahay, ilaahay ma rumaysay, diintiisa ma u hoggaansan tahay, awaamirtaan soo socota waa inaad ka soo baxda. waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna, gabdhaha mu'minaadka ahi araggooda waa inay raariciyaan oo araggooda laabaan oo aynan ragga indhaha ku fiiqin, waa inay farjigooda ilaaliyaan oo zine iska ilaaliyaan. walaa yubdiina ziinatahunna, waa inayna quruxdooda muujin. gabadha ilaahay khalqigeeda qurux buu ka dhigay, ilaahay baa qurxiyey gabdhaha. lama raba marka quruxdii ilaahay ku siiyey ukhta almuslima inaad bannaanka soo dhigtid. quruxda ilaahay wuxuu ugu talagalay waxa weeye guri saalixa, guri wanaagsan, zawj xalaala, ubad khayr qaba ayaa quruxdaada la rabaa inaad kaga faa'idaysatid. lama raba inaad quruxdaada ka dhigtid badeeco bannaanka taalla oo waxa weeye aad bannaanka soo dhigtid oo ragga hor marisid. lama rabo dadka ku fidnaysid. ilaa maa dahara minha, ay macnaha wixii daahir noqday oo culummada ay qaarna ku fasireen alwajhu waalkafayn, qaarna ay ku fasireen dharka iyo dusha. labada qowlba waa jira. ilaahay waxa uu yidhi walayadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna, waxa weeye khimaarkooda waa inay qaataan. juyuubka waxaa laga wadaa meeshaan fatxatulcunuq, qoorta meeshaan waa inay qariyaan oo waxa weeye khimaarkii ay qaataan oo isku dadaan ayaa la rabaa, jilbaabkeeda iyo dam isku siiso. walaa yubdiina ziinatahunna, quruxdooda ayayna u muujinin ilaa libucuulatihin, raggaaga ha, raggooda waa loo ogol yahay. ninkaaga quruxda u muuji, si walba isugu qurxi, si alla sidaad ku indhasarcaadin kartid waxa waa lagu ogol yahay. ninkaaga noocna ha hakranin, qurux walba iyo waxa weeye nooc walba iyada waa lagu ogolyahay, taasi xalaal bay kuu tahay. haddaba markaa ninkaaga waa lagu ogol yahay oo nooc walba ah oo mutlaqa, ama dadka kale oo waxa weeye qaraabada ah oo waxa weeye maaragtay oo aabaa'ihinna, waxa weeye oo aabaa'i bucuulatihinna, kuwa aabbayaasha ama aabbayaasha waxa weeye ragga dhalay, iyo ilaa aakhiri alaaya oo aayaddu ay dad badan sheegtay. intaasoo dhan cawrada leeyahay waa loo ogol yahay, waa midda caadigaa, ay macnaha labiskeeda caadigaa. oo waxa weeye haddii masalan ay aabbaheed iyo walaalaheed iyo gabadhii la joogto oo dee madaxa qaawiso dhib male, waxa weeye xijaabkii iska dhigto, maryo maaragtay xoogaa fudfudud qaadato, laakiin dee isma qaawinayso oo say ninkeedoo kale isugu qaawinayso iskuma qaawinayso dadka waxa weeye hortood. marka aadaabta islaamka ayaa ilaahay ina baray oo gabdhihii mu'minaadka ahaa la amraya. haddaba marka gabadha muslimaddaa waxaa laga rabaa oo caqliga leh oo diinta garanaysa inay noqoto gabar xijaabkii ilaahay uu amray yudniina calayhinna min jalaabiibihinna. yaa ayuha annabiy qul liaswaajik, nebiga calayhi salatu salaam waa la amray. haye amarkii marka nebiga la amray oo dumarkiisa la amray inuu u sheego oo gabdhaha mu'minaadkaa u sheego, miyaadan adigu marka ka mid ahayn ukhti fillaah? waa inaad marka ku dhaqantaa oo aad noqotaa kuwii nebigu amray. oo maxaa la amray? yudniina calayhinna min jalaabiibihin, waxa weeye jirkiina ku raariciya baa la yidhi jilbaabka. jilbaabka iyo shuruudihiisuna waa inoo imaanayaan oo waa inuu qofku ka soo baxaa sidii waxa weeye gabdhaha muuminaadkaa uga soo baxeen oo waxa weeye ay u sameeyeen. gabadha muuminaddaa waa inay iska ilaalisaa xadiidka soo socda inay ku dhacdo, waciidka khatartaa oo xadiidkaasi uu caddeeyey iska ilaali ukhtii fillaah. nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam sinfaani min ahli الnaar
laba qolo oo ahlu naarkaa lam arahumaa anigu ma arag oo waa imaan doonaan laba qolo oo naarta gelaya oo dadka ka mida anigu ma arag laakiin waa imaan doonaan qowmun macahum siyaaqun kaadnaabi albaqar qolo waxa weeye kuwo haysta suuman saynta lo-doo kalea waa kuwa askarta ah oo dadka ku garaacaya yadribuuna biha annaas waa kuwa dadka cadaabay macal shaahidkeennu waxa weeye wa nisaa'un dumar kaasiyaatun dhar bay qabaan caariyaatun waa qaawan yihiin subxaana allah bal u fiirso dharna waa qabaan baa la yidhi waana qaawan yihiin culummadaa caddeeyey oo sharaxay ay kaasiyaatun dhar bay qabaan bibacdi ajzaabihinna jirkoodii